صلابة وعن kusoo dhawaada markale muuqaal cusub YouTube-keena muddo dheer kadib muuqaalkeena waxaan ku wada eegi doonaa tutorial oo ah Node.js aan ku sameynay laakiin hadda uu yahay inaan ku sameyno HTML iyo CSS. So tutorial wax kale maahan waa to-do list app-kan oo jeedin to-do list app-kan oo hadda idinkeeda muuqdo linkiga aan description-ka muuqaalka siisaan dhigayna. So database ku xiran database MongoDB ku xirnay kaas oo isticmaalna so Node.js aan ku dhisnay. So marka series kan ka qaybo noqon doona hadda qaybta koowaad oo HTML CSS aan ku dhisi doono aan wada eegi doonaa. marka waxaan sameysanaynaa folder symbol list ku qoran tahay then VS Code ka soo kacsana markaas kadib waxaan sameynayaa labo file koowaad wuxuu noqon doonaa mid HTML ah. So file kan waxaan qoran index aan ku qorana kalna waxaan qoranayaa in folder aan dhexgelinaa CSS the folder gas dhexdiisa kadib waxaan qoran doonaa file adaayo styles.css. so marka kan laba file aad u baahanahay so midka koowaad marka email isticmaala structure oo HTML ku soo darsanaa kadib title oo sameysana oo la symbol to do list so then title kadib waxa u baahanayna linki wax isku sameeyo oo style-ka aad sameysanaynay. So kadib marka ku xirano sida kale linkigaas oo fonti ku soo darsanaa so marka waxa baahanay glass div oo ku jiro lahay marka glass kiisu yahay box. so divgaas kadib h1 oo waxaan ku sameysan doonaa day oo meesha ugu qoran tahay so waxaan qoraa Thursday taariikhda la 8 January ah. so kan waxayna noqon doonaa markii gaweynka so waxa jira marka glasska la box so box-ka dana oo baana glasska marka wuxuu ku jira form so wixii formkii waxa soo galay sanada camal input checkbox waxa soo galayaan so uun baani marka action xas waxaan sameynaa marka formka kala weynina dan kadib waxaan sameysana glass item div oo glasskiisa yahay item kadib waxaan soo gashanaa input kan type-kiisu yahay checkbox then name magaca u baxsa dirtid so checkbox aday id uma baani so kan kadib marka soo darso kana checkbox ku asaas so paragraph loo baanana oo inay u qoran tahay magaca adoo meesha markii aan ku xirayno database-ka Node.js aan ku isticmaalayno so waxaan sameyn doonaa loop ku sameyn doonaa oo ma baana markii in saan wax u soo celcelino copy aan dhaha so xigta wax yar ka bedela bahana marka input so input kan waxa way doodi qofka ma soo gelinayo item-ka meel soo geliya la baana so players ka marka xaq dhigana new item qorena so waxa baananimo in xog cusub soo gelino iyo kadib waxaan sameyn doonaa button-kaas waxa plus so button-na loo kadibna aan soo gashto button-ka type-kiisu uu yahay submit so type-kiisu markuu submit uu yahay button-ka waxaan qaadan doonaa and what do we call name so name gets kadib submit oo baxsanayna calaamad plus action doonaa hadda waagana marka HTML oo baahnay oo sameynay so in hadda soo qurxina noo dhiman hadda markii inta amaanayna HTML ki atagana so style ku sameyn doona HTML-ka oo basic markasta oo aan sameynayno page ama waxa sameeyo so aan isticmaalaa HTML kana kooda soo doorto waxa u baahnaa ku sameeyo so tusaale amal background-ka image aan isticmaal doonaa repeat baahni sidoo kale background size waxa rabaa inaan la cover inuu page na wada qabsado baanay height-kana sidoo kale boqolkiiba inuu qaato rabaa so waa ka boom oo jeedin so waxa sameynaa box glasski box-kiina waxaan dooranay then width oo maximum siin doona oo ilaahay 400 ka badan ma dhaafi karo
margin قلنا so margin قلنا marka waxaa waaye content pixel oo top iyo bottom out oo left right sidoo kale background size background waxaa siinaa oo yahay nooc white so boxka waaye sidoo kale waxaa siin doonaa border radius ka siinaa sanad camal waxaa waaye 7 pixel okay so box shadow aan ku dar doonaa so boxka then 5 pixel 15 minus 5 pixel so RGBA oo baahanahay oo dhinaca red 0 green 0 blue 0 headinga idgaas dooranay tan kadib waxaa dhacnaa background color waxaan ka dhigaynaa noocaas so isticmaalaya waxaad doonto markaas kadib aan ka dhignaa text alignment waxaan ka dhigaynaa center aan geenaynaa text jiran background color ka qaldan so okay waa sax kadib waxaan samayn doonaa h1 color oo waxaan siin doonaa cadaan colorkiis marka cadaan ka siiyo badina soo gelinaa oo full badina afartan dhinacba 10 pixel aan geliyay waa ka dad headinga waa saxnay marka waxayna wax kale ma ahan so marka waxaan galaynaa hadda item scan markaas waxaan sameynaa itemka glass itemka soo dooranaa kadib minimum height siiyay so minimum height ka siiyo waxaan noqonaa 30 pixel height uu yar macna qaadan karo so dan waxa soo bandhigaa allah itemska kulligood so flex soo bandhig so waxa ala ingaraynaa ama kulligood center ka geeyay so kadib wixii itemkaas ku jiraan border oo waxaan siinaa bottom so border bottom line oo 1 pixel bes siinaa dankaas waxa waaye solid markaas waxaan sameynaa kadib item oo child last child macna midka ugu dambeeya childiga so bottomkiisa 0 gay childigaas marka waxaan rabaa inuu hoos u tago so kadib inputka u baahanahay so input typekiisa uu yahay marka jacket iyo maxaa la dhahay paragraphka so waxaan sameynaa marka text decoration oo sameeyay haddii marka oo click la siiyo inputkaas oo checkboxka ah so asi paragraphka line through marsi waay so kadib waxaan sameynaa input typekiisu yahay checkbox so margin oo waxaa geliyay markaas 10 pixel then waxaan sameynaa markaas paragraph wixii paragraph aragtidna margin waxay igaysaa macnaha 0 margin kooda 0 ka dhig then badin waxay igaysaa 10 pixel after markaas aan sameyno font size oo waxaan ka dhigaynaa paragraphkaas 10 pixel aan siinaynaa kadibna fontiga weight waxaan siin doonaa ay tahay la dhiga 200 sidoo kale waxaan siinaynaa like some adiga wax oo daag aga camal colorki siinaynaa make primary colorkeena so then markaas siino ka soo noqday waxaadina waxaa waaye inputkaas inaan habayno iyo buttonka so buttonka korban doonaa the form ina dhahda item okay inaan then waxaan dhahnaa marka wixii itemka oo form ku dhex jiro waxaan sameynaynaa lefty 20 pixel ka soo qaad so marka waxaan tagaynaa buttonka waxaan sameynaynaa button dheerna minimum height oo waxaan siinaynaa adiga 50 pixel then kadib minimum height markaan siino width oo waxaan siin doonaa asigana oo ah
so markaad sabdelo wadiidaya so waxay qaldan sa button sa qoray so dadku oo jeedada markaas soo noqday so steerkaas sameeyay after markaas waxa sameeyay sameeyo waxaan sameyn doonaa input tabkaas ayna hubaya so input oo tabkiisu uu yahay text so input tabkiisu uu yahay text ama sameyn doonaa textiga center gate kadib height waxaa siinayna oo 60 pixel ah sidoo kale waxaa siinayna top oo kasoo dhawaaq 10 pixel markaad soo sameyno border border dhan u baahan markaanaka border nana leena so background oo waxaa siin doona markaa asiga transparent ka dhigayna so color gadaal leena noqotaa size oo waxaan siin doona 30 pixel ah 20 pixel ka dhigo kadib waxaan sameyn doonaa markaa so food weight asiyay oo 200 food weight kadib width waxaan sameyn doonaa width iyo width ka asina wax kale 3 pixel asiyay so after that waxaan sameyn doonaa markaa the focus markii adigo click siiyo waxaan sameyn doonaa so markaas dhahno waa leena focus isticmaalina kadib focus markaa isticmaalno online oo waxaa siinayna none sidoo kale box ma online waxaa weyn waxaan ka qaadmado waaye